maanta muuqaalkeena waxaynu kaga hadlaynaa cashuuraha u yaabka badan ee dawladuhu qaadaan. haddii lagu weydiiyo waa maxay cashuurtu, waxay u badan tahay inaad ku jawaabto cashuurtu waa xaddi lacageed oo ay dawladdu ka qaado qof ama shirkad si ay ugu maalgeliso adeegyada kala duwan ee loo qabto muwaadinka. cashuurtu waa isha dhaqaale ee ugu muhiimsan ilaha dakhliga ah ee dawladaha, iyada ayayna dawladuhu ka bixiyaan mushaharaadka ciidamada iyo shaqaalaha rayidka ah. cashuurta ayaa lagu dhisaa xarumaha iyo xafiisyada dawliga ah, kaabayaasha dhaqaalaha, iskoolada, cisbitaallada iyo goobaha danta guud. sidoo kale isla cashuurta ayaa lagu maalgeliyaa adeegyada waxbarashada, caafimaadka iyo wixii la halmaala ee ah adeegyada dawladdu si lacag la'aan ah ama qiimo jaban ku siisa muwaadinkeeda. ujeeddooyinka loo qaado cashuurtu kuma koobna maalgelinta iyo mashaariicda adeegyada, jihaynta dakhliga muwaadinka iyo difaaca wax soo saarka maxalliga ah ayaa ka mid ah ahdaafta kale ee cashuurta. dakhliga qofka, hantida maguurtada ah iyo faa'iidooyinka ganacsiga ayaa ah waxyaabaha ugu badan ee ay dawladuhu cashuuraan. madaxweynihii hore ee Maraykanka Benjamin Franklin ayaa laga sheegay inuu odhan jiray nolosha laba shay lagama badbaado, cashuurta iyo geerida. haddaba daawade, ma ogtahay in xilliyadii hore ama haddaba ay jiraan noocyo cashuurad oo aanan geli karin caqliga qofka caadiga ah? haa, waa cashuuro aan manga lahayn oo marka aad maqasho laga yaabo inaad tidhaahdo iga daa ciyaarta. cashuurta garhka waa cashuur uu qaadi jiray boqorkii boqortooyada Raashiya xukumi jiray qarnigii 18aad, waana ninka lagu magacaabo Peter the Great ama Peterkii weynaa. ujeeddooyinka cashuurtan waxa uu ahaa la jaanqaadka ilbaxnimada ka hana qaaday qaaradda Yurub, lagana takhaluso garhka ay la bixi jireen shacabka ku dhaqan boqortooyada Raashiya. boqor Patrick la bixidda garhka waxa uu aqoonsaday dib u dhac iyo horumar la'aan. sidaa darteed wuxuu ku soo rogay cashuur qof kasta oo garhka la baxa. 100 rabal ayaa laga qaadi jiray sannadkii ganacsadaha la baxa garhka, halka bulshooyinka caadiga ah laga qaadi jiray 60 rabal sannadkii haddii ay sii daayaan garhkooda. ugu dambayn, baadariyada kiniisadda iyo dadka ku dhaqan baadiyaha waxaa laga dhigay cashuurtooda 30 rabal sannadkii. fikradda boqor Patrick waxa uu kaga dayday boqortooyadii England oo cashuurtan la mid ah ka qaadi jirtay qof walba oo garhka la baxa ama koofiyad xidha. dabcan qofna uma baahna in loo sheego timaha garhku inay yihiin kuwa Allah soo saaro, hiigistooda iyo deyntooduna aysan saamayn ku lahayn horumarka iyo xadaaradda bini'aadanka, waxayna la mid yihiin timaha kale ee ka soo baxa jidhka kale. waxaa xusid mudan in diinteenna suuban ay sunnaysay deynta garhka iyo xiidhista shaarubaha. cashuurta albaabada iyo daaqadaha. waddanka Faransa waxaa laga hirgeliyay cashuur lagu magacaabo cashuurta albaabada iyo daaqadaha. xaqiiqda ayaa ah in cashuurtan ay ugu horraysay dawladda Talyaaniga oo qaadi jirtay qarnigii 1 ee taariikhda miilaadiga. boqorkii caanka ah ee Julius Caesar oo ah ninka loogu magacdaray bisha 7aad ee tirsiga taariikhda miilaadiga ayaa ku soo rogay shacabkiisa cashuur loogu magacdaray Austerium, waxaana lagu amray bulshadii ku noolayd boqortooyada inay cashuur ka dhiibaan albaabada iyo daaqadaha guryahooda. markii uu dhacay kacaankii Faransiiska sannadkii 1789 ayay dad badani diideen inay cashuur siiyaan dawladda cusub ee dhalatay, waxaana maratay qasnada dawladda si loo xaliyo dhibaatadan. wasiirka maaliyadda ee wakhtigaas Domenico Remal ayaa soo jeeday in si ku meel gaara cashuur looga qaado albaabada iyo daaqadaha guryaha si uu u qanciyo fikraddiisa golaha baarlamaanka oo markii hore ka biyo diiday aragtidan. wuxuu tusaale u soo qaatay taariikhda boqorkii Roma ee Julius Caesar. sidoo kale wuxuu tusaale kale u soo qaatay dawladda Ingiriisiga oo cashuurtan la mid ah qaadi jirtay qarnigii 17aad markii uu talada boqortooyada gacanta ku hayay King William III. boqor Williamkii 3aad qiimaha cashuurta ayaana ku xirnayd tirada albaabada iyo daaqadaha uu guri kasta leeyahay iyo hadba inta ay weynaan leeyihiin. mar walba oo tirada daaqadaha ama albaabadu ay bataan waxaa kordhaysay cashuurta laga qaadayo. si taas la mid ah, haddii ay noqdaan albaabo waaweyn cashuurta ayaa badanaysa. xarumaha dawladda iyo dhismayaasha danta guud sida cisbitaallada, goobaha waxbarashada iyo cibaadada ayaa laga reebay meelaha laga qaadayo cashuurtan. shacabka Faransiiska ayaa si weyn u qaadaya cashuurtan cusub, waxayna bilaabeen inay iska xidhaan albaabada iyo daaqadaha guryahooda si aan looga qaadin cashuurtan waalida ah. dad badan ayaana guryahooda u soo reebay hal albaab iyo hal daaqad. arrintani waxay horseeday in guryuhu ay waayaan hawo siin ku filan, cudurrada faafa ayaana si daran u fiday. arrinta la yaab kale ayaa ah in dawladda Faransiisku ay cashuurtan ka qaadi jirtay dalalkii ay gumaysan jirtay. dawladda Faransiiskuna cashuurtan waxay qaadaysay in ka badan 125 sano, waxaana la joojiyey sannadkii 1926 kadib olole ballaadhan oo ay qaadeen khubarada iyo bahda caafimaadka ayaana sababay in cashuurtan la joojiyo sannadkii 1926. inta badan cashuuraha aan ka hadlayno waxaa la qaadi jiray taariikhda loo yaqaano casrigii dhexe
ama medieval era waa taariikhda ka soo bilaabata qarnigii 6aad kuna eeg qarnigii 16aad ee tirsi taariikheedka miilaadiga. cashuurta lo'da. cashuurtan waxaa hirgeliyey dowlado ka tirsan midowga Yurub waxayna ku fiday dowlado ay ka mid yihiin New Zealand. ujeedka loo sameeyey ayaa ahaa la dagaalanka cimilada sii kululaanaysa ee dunida. lo'da waxaa lagu eedeeyey inay tahay xayawaan si weyn uga qayb qaata korarka kulaylka adduunka. haddaba sida ayay u dhici kartaa? lo'du ma warshad uumi afuuftaa? ma gaadhi qiiqa hawada nadiifta ku halleeya? ma qashinka waddooyinka buux dhaafshay iyo xaalufka deegaanka mas-uulka ka dambeeya? saynis yahanadu sida ay sheegeen, lo'du waxay sii daysaa hawo dugsoon oo lagu magacaabo methane gas. hawadani waxay 18% ka tahay greenhouse gases ama gaaska diiran ee cimilo kulaylka u horseeda qaaradda Yurub iyo dunida inteeda kaleba. greenhouse gasesku waa hawooyin dugsoon oo laga helo gibilka dhulka, kuwaas oo nuuga ilayska qorraxda kana qayb qaata kulaylka cimilada adduunka. carbon dioxide iyo methane gas ayaa ka mid ah noocyada ugu muhiimsan gaaskan. waddanka Denmark ayaa sanadkii 2014 ururisay xaddigii ugu badnaa ee cashuurtan, $110 ayayna ku xukuntay sac walba sanadkii. aynu kacaan cashuurta yaabka leh ee ka jira qaybta bari ee dunida. Jabaan. cashuurta caloosha. waa sax waxaad maqashay. matiibo waa cashuur ay dowladda Jabaan qaadisteeda bilowday sanadkii 2008. heerka cashuurtu waa in qof kastoo ay da'diisu u dhaxayso 45 ilaa 74, cabirka dhexdiisu uusan ka badan 85 sentimitir haddii uu rag yahay ama 90 sentimitir haddii uu dumar yahay. ujeeddooyinkii loo sameeyey xeerkan ayaa lagu tilmaamay yaraynta cayilka iyo ka hortagga xanuunada ku lamaan miisaanka badan ama buurnida sida dhiigkarka, kolestaroolka iyo wixii la mid ah. heerku wuxuu farayaa shirkadaha iyo dowladda hoose inay si joogta cabir ugu sameeyaan shaqaalahooda ayna la socdaan miisaankooda. qofka ku dhaca imtixaanka caloosha, marka koowaad waa inuu la xiriiro mid ka mid ah khubarada nutritionka. 2 waa inuu raaco diet ama nidaam cunto miisaanka jidhkiisa. 3 haddii ay laga maarmaan noqoto, intaas waxaa loogu darayaa 6 bilood oo dhaqan celin ah sida qorshuhu yahay. sanadka 2025 shirkadaha ku guuldarraysta inay hoos u dhigaan tirada shaqaalahooda la ildaran baruurta waxaa laga qaadi doonaa cashuur dheeraad ah oo lagu kabayo sanduuqa daryeelka dadka waaweyn. Jabaan waxaa lagu tilmaamaa dowladaha ugu cayilka yar dunida. 5% tiro ka yar oo ka mid ah dadkooda ayaa miisaankoodu ka badan yahay xaddiga la ogol yahay. laakiin tirakoobka ay sameeyeen sanadkii 2013 ayay ku ogaadeen in tirada dadka qaba dhiigkarka ay kor u dhaaftay 8,900,000 oo qof. arrinkani waxa uu dhibaato weyn ku yahay dalkan oo ay caqabado badani ka haystaan hoos u dhaca tirada dadka dhalanaya. cashuurta ganacsiga sharci darrada ah. dowladaha adduunka siyaabo kala duwan ayay ula dhaqmaan ganacsiyada sharci darrada ah ee ay ka mid yihiin ganacsiga hubka, maandooriyaha. laakiin dowladda Masar ayaa cashuur ku soo rogtay dadka lagu soo qabto ganacsiyada sharci darrada ah, sida uu sheegay mas-uul ka tirsan waaxda cashuuraha oo lagu magacaabo Siciid Fu'aad. qoondada cashuurta waxaa lagu qiimeynayaa heerka uu gaaray ganacsaduhu, muddada uu shaqadan soo waday iyo lacagaha uu ka sameeyey. cashuurta cunnada fudud. fast foods. la islama diidana caafimaad darrada ka dhalata cuntooyinka fudud oo alaaba caan ku ah dufan iyo macaan aan meel loo dayin. haddaba si loo ilaaliyo caafimaadka muwaadinka, dowladda Hungary ayaa cashuur dheeraada ku soo rogtay cuntooyinka fudud. berkadaha dabaasha ee gaarka loo leeyahay. dunida hormartay, dadka ladan guryahooda lagama waayo buul ama berkad lagu dabaasho. haddii aad ku nooshahay dalka Giriiga, gurigaaga ha u samayn berkad lagu dabaasho. haddii kale u diyaargarow cashuur aan ka yarayn €800. marka la joogo Giriiga, berkadaha dabaasha waxaa loo aqoonsan yahay raaxa xad dhaaf ah oo qofka haysta ay tahay in laga qaado cashuur aan dadka kale laga qaadin. cashuurta kabniinka. la islama diidana in qofka bukaanka ahi uu u baahan yahay daryeel iyo kaalmo gaar ah, laakiin marka laga hadlayo dowladda Australia xaalku sida uu ka duwan yahay. waxaa jirta cashuur gaar ah oo laga qaado qofka jaba ee la soo kabo. arrintan ayaa timid kadib markii tirada dadka jaban ay kor u dhaaftay 150,000 oo qof. ciyaaraha barafka buuraleyda Alps ayaa noqday kuwa sababay jabniinka ugu badan. si loogu qasbo dadka inay is ilaaliyaan, waxaa lagu soo rogay cashuur lagu magacaabo cashuurta kabniinka. cashuurta ulaha cuntada. waxay u badan tahay inaad aflaamta ka aragtay qoryo laba ah oo ay cuntada ku cunaan shucuubta ku nool bariga qaaradda Aasiya. inta badan ulahan waxa laga soo gooyaa geedka lagu magacaabo qaysaraanka ama bamboo. waddanka Chinaha, tiro aan ka yarayn 45 milyan oo qori ayaa loo isticmaalaa sanad kasta cuntada. shaki kuma jiro arrintani inay dhalinayso xaaluf deegaan oo aad u ba'an.
haddaba si loo badbaadiyo kaymaha deegaanka dowladda China waxay cashuur dhan 5% ku soo rogtay qoryaha cuntada. cashuurta qorraxda ma jirto cid sheegan karta lahaanshaha cadceedda, waa ilays alle sameeyey oo tamartiisa iyo faa'iidooyinkiisa kaleba loo siman yahay. haddaba arrinku sidaas ma aha marka aan ka hadlayno jasiiradaha Balearic ee ka tirsan gobolka Mallorca ee Spain. dowladda hoose €1 oo cashuur ayay ka qaadaa dalxiis walba oo yimaada jasiiradan inuu ku cadceedsado xeebta. haddii aad soo gaadhay halkan waxaad tahay saaxiib ka duwan daawadayaasha kale ee janaalka. isku day inaad ka jawaabto su'aashan: ma waxaa yaa badan cashuurihii la qaadi jiray qarniyadii hore, mise waxaa cajiibsan cashuuraha la qaado casrigan? noogu reeb jawaabtaada qaybta hoose ee kommentiga.